habab aad ku noqon lahayd hogaamiye ganacsi oo guuleysta. Videogan waxaan kugu soo bandhigi doonaa hababka ugu fiican ee aad ku noqon lahayd hogaamiye ganacsi oo guuleysta. Haddii aad ku cusub tahay kanalkan, subscribe saar. Haddii aad videoyadan aad ka hesho, like saar. Ganacsigu waa qaabka ugu fiican ee uu qofku ku samayn karo hanti. Qof kasta oo hantiile ah ama milyaneer ah, waxa ugu badan ee hantida uu haysta uu ka sameeyaa waa ganacsi. ugu horeyn waxa aan ku tusin doonaa habab aad u fiican oo aad ku noqon karto hogaamiye ganacsi. 1. Inaad noqoto qof dhinac fiican wax ka eega, positive side. Qofka oo dhinaca fiican wax ka eega waxa ay qofka u keeni kartaa inuu kalsooni nafeed helo. Qof kasta oo raba inuu noqdo hogaamiye ganacsi waa inuu ku kalsoon yahay naftiisa, isaga oo u soo bandhigaya naftiisa wanaagga. 2. Qabo waxa aad jeceshahay. Qabo hawl kasta oo aad ku fiican tahay misana aad jeceshahay. Haddii aad dhakhtarnimo jeceshahay, qabo inaad noqoto, isku day inaad noqoto dhakhtar, ama qabo shaqo kasta oo dhakhtarnimadu u qabat. Haddii aad injineer jeceshahay inaad noqoto, qabo shaqooyinka uu injineerku qabto, ama baro cilmi kasta oo la xiriira waxa aad jeceshahay adigu. Marka aad rabto inaad alaab iibiso ama aad ka iibiso, u soo bandhig customer-kii aad hore u haysatay, adiga oo isku dayaya inaad kasbato customers ama dad kugu xidhan ganacsigaaga oo fara badan. Wakiil. 4. Way adag tahay inaad adigu qabato shaqo kasta oo maalinle ah. Isku day inaad samaysato wakiil hawlaha kula qabta. Wakiilna uga dhigato hawlahaad adigu qabanayso ama aanad adigu waqtiga aanad qaban karin. Isku day inaad samaysato la taliyayaal dhinaca suuqgeynta ah iyo sharciga. Kuwaasi waxay kaa caawin doonaan inay ku siiyaan talooyin aad ku gaari karto hadafkaaga iyo inaad lahaato hadaf cad.